أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. ولي ولا ليال وحي نوسعده كتاب كأني صحيح صفة صلاة النبي. فلما لأجل ما الذي كدرتي تقدم الصهر مري يجب على أهل العلم وحكوا يجب أن ينصحوا الشباب بل يراد أن ينصحيان أن يحضروا مجالس تعليم قوبها وحبرد إن يسوى حاضران أن يحضروا مجالس تعليم قوبها وحبرستا إن يسوى حاضران إن يراد أن ينصحيان أي لدون يادتك أهل العلم لقراءة كتاب آخرين سنة يسوى حاضران dadka culimada mas'uuliyadda saaran waxa kamida dadka shabaabka ah ee dhalinyarada ah inay ku baraarujiyaan mar walba inay ka qayb qaataan goobaha cilmiga lagu aqrinayo aw istifaadati baabin ama hal baab faa'iideysigiisa baabkaas oo min cilmiga kamida ama xataa hal baab oo cilmiga kamida in ay faa'iideystaan dhalinyaradu waa inay mar walba ay ku baraarujiyaan أو لمناقشة مسألة أما مسألة كالدودي الديدة مسألة داسو علمية أي علم له نسبي أما إلا يددك الشباب كأيوغن الساحيان ومروا البابا يكبوا الريان إن بحثوا دا أي دودان مسائل علمية أي كالدودان أي دودان سنة تعصب يسرب راب يحاسد نما يسن كل سنين أي ولجددوا يتهايون وحلك لفايديستو ونحو هذه أما تنوحي لمدة تاسو على الأمور أرمها وحي لمدة إن dadka shabaabka lagu baraarujiyo badala idaacati awqaatihim waqtiyaalkooda layicidda bedelkooda in lagu baraarujiyo cilmiga inay xaadiraan goobaha lagu akhrinayo meelaha dadka dhalinyaradu ay caado ka dhigteen inay waqtiyadooda ay ku dayacaan waa in maaragtay taa loogu bedelo goobaha cilmiga inay xaadiraan wa badala qatli saacaati faraaqihim firaaqadooda saacadaha dilkooda bil kalaami hadal ay ku dilayaan saacadaha hadalkaas oo alfaariqi ee faariq ah oo wax macna darro ah oo haba yaraatee wax macno ah aan lahayn xilliyada ay dhalinyaradu waqtiyada ay ku liminayaan hadalka faariqa ah oo macno lahayn waa in looga naseexeeyo waa ahlaam liyaqada alwasaadka soo jeedka ay ku dilayaan saacadahooda معناه واحد جرى قف سوجي ذا وعلوساد أي هذنا علوساد سيدي سوى حل إلى واحد سكمة تلالع عن ماركته رسمي هاي المفت قف يسوي سوجي ذا وسكمة تلالع ما دام هذا المعنى كفر دي أهمية لأوصل آخرين ينن وقف متلالع هي وكله أي الله جسوا قاضي لا سيما مثل مره والحال نحن أنا نرى بعضهم بل يراد قاركود أن أركي إنه أحيانا في أحيان وقت يذا قار أن أركي إنه يقفون حال استاغايان في مساجد ay dhex istaagayaan biman an ka fogaashana ay ku dhex istaagayaan aan xilaq ilmi goobaha cilmiga ay ka fogaanayaan waxaan masal lahayn hadda xiliyadan inaan aragnay dad dhalinyaro ah oo goobaha cilmiga intay yimaadaan halkaas ka fogaanayo goobaha cilmiga lagu akhrinayo wal hal hum ayagu baciiduna yihiin kuwa fog يتحدثون حالي كشاكيسان أيام في أمور أرمى الدحدود أرمى سوى تافهة الليلة أرمى اللي تو وحقي ما أن كل سنين أي كشاكينا ينتهي هلكا فوقادان قوضيه علمك اللي آخرين مساجدك يكجران علمك مساجدك قديسة الوهية مع أنهم لا يحضرون من حاضر أيام قوضيه علمك اللي آخرين انتهي كفوقادان قوبتي أو ميل فوق فريستان أي ما لا يعني إيا شاكا بربوغاندا أي هلكا كوهستان ويتركون العلم علمنا ويسجتجاين إما لأن ذلك كاس العالم عالم كاه الذي عالم كاسو يلقي درس ماشى كالرداية ليس من جماعة إنه سنكمل هين أيوة تجاين وحضرك يقول يا شيخ ضد اللي يراه مساجد أنت سوق قلان مركز فيريان شيخ 10 كآخرين هيا منهج النظام كوحكو آخرين هيا وجهي سي فيريان ما دام الشيخ فكر كود يا جماعة إنه سنكمل هين ويكفوا قانايا نقوى ذي لي وخرافيستي أو لأن هناك أمهل كاسوحة هذه من روح سو ينهاهم كالرباية عن حضور مجلس ذلك كاس فدقا حاضر ديسة كالرباية كاسو العالم كاه أما وحابا ماشا وقو قنبنبا من
caalimkaas goobihiisa in la tago oo wax laga akhristo ka reebaya dhallinyarada oo dhahaya ninkaas xoogaa isku fikir ma nihine waxa ka baran waxa ka akhrisanin goobihiisa ha xaadirin khudbooyinkiisa ha tegin muxaadarooyinkiisa ha tegin iska jir dhahaya waa nin lugoynaya oo raba inuu maaragtaa intuu qofkii keligii wax u sheego waxaas uu maaragtaa ku qunfulay oo baadilka ah in laga daadiyuu ka cabsana marka welwalaahaya iyo walbahaar uu isleeyahay macnaha qof kaa cilmi badan ama kaa fasaaxo badan haddii ninkani uu dhegaysto waxa aad ku shubtay waa laga daadina ayuu isleeyahay bixujati ana alcilma cilmigu umuurun arrimo inuu yahay xujadeeda ayuuna uga reebaa arrimahaasoo khilaafiyatun ee khilaaf loo nisbeeyey arrimahaasoo yajibu alibticaadu ka fogaashada ay waajibayso canhaa arrimaha xaggeeda laga fogaado wuxuu markaa xujo ka dhiganaa oo uu leeyahay cilmigu waa arrimo khilaafi ah in laga fogaadaa khilaafkana fiican marka waxba cilmi ha akhrisane wax dhan waa laysku khilaafsan yahay ka fogaaw saasuu leeyahay waa waxyaalaha macnaha dadka reer magaalka intooda badan ay jaahilka ku noqdeen taasaa ka mid a wahum iyaguna laa yastadiicuuna ma awoodaan idraaka khatari daalika kaas khatartaa inay ogaalkeeda ma awoodaan kaasoo ah shicaari halkudhigga ah shicaarkaasoo alhaddaami ee dunduminta badan ma oga halkudhiggaasi inay tahay halkudhig diinta islaamka burburinaya oo ka hor imaanaya oo baabi'inaya inuu yahay wa tamyiiz alkhafi midka liita ka soociddiisa ma garanayaan min asamiini midka cayilan oo fiican laga sooco kalama yaqaanaan khafi iyo samiin macnaa waxa xun iyo waxa wanaagsan kalama yaqaanaan licadami wujuudi mawaasiina miisaanyaal heliddeeda la'aanteed ayaysan u kala aqoon waxa xun iyo waxa fiican mawaasiintaasoo cilmiyatan ee cilmi loo nisbeeyey ladayhim agtooda aan laga helin miisaan uu qofku wax ku kala miisaamo oo cilmigii wixii maaragtaa saxiixa iyo wixii faasida uu ku ogaado miisaankuusuusan hayn miisaan uu wax ku kala ogaado ayuusan hayn bisababi ibticaadihim ka fogaashadeeda sababkeeda ayaana miisaankaas agtooda aan looga helin can alcilmi wa ahlihi cilmigii iyo ahalkiisiiba ay ka fogaadeen dee hadduu goormuba wax kala soocaa ama xalaal iyo xaaraam uu kala ogaadaa maxaa yeelay waxaa lagula teliyey goobaha cilmiga ha tegin cilmigu waa arrimo laysku haysto ee khilaafiyaadihi walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ayuu yidhi sheekh xasan walaa xawla xiilad lana annaga nooma sugnaanin walaa quwata awood lana annaga nooma sugnaanin ilaa billaahi ilaa bicawni illaahi ilaahay kaalmihiisa maahane annagu wax awoodaya wax xiilada ma nihin ilaa ilaahay inuu inoo kaalmeeyo maahane subxaanah fa ayna man qofkii aaway qofkaasoo yaqsidu wajha allaahi ilaahay wejigiisa ula qasdaaya tacaalaa ku rahaya oo wayadlubu alcilma cilmiga raadinaya wa tafaquha fahmidna raadinaya fii diinihi ilaahay diinkiisa la fahmo aaway macnaha ma lahayaa maantay nin ilaahay dartii cilmiga u raadinaya diinta barashadeeda alla darteed ay ka tahay bikhawfin cabsina cilmiga ku raadinaya iyo wa waracin xalaal mirasho iyo wa tacabudin cibaadaysi iyo wa tilaawatin akhrin iyo wa dikrin dikri iyo wa camalin camal wanaagsan ee saalixa iyo wa qiyaami leylin habeenka istaaggiisa iyo wa sabrin dulqaad cala aladaa dhibka uu ku dulqaato aaway dadka macnaha ilaahay dartiis u caabudi ilaahay dartii cilmiga u raadin jiray ee har iyo habeen ku mashquulsanaan jiray alla ka cabsiga cibaadada qur'aan akhrinta dikriga qiyaamuleylka dulqaadka dadkii ku sifoobay aaway wa culuumu sharci illaahi naadat jahratan haadaa awaanun fiihi dayu bisaati wa culuumu sharci illaahi naadat jahratan fahaadaa awaanun fiihi dayu bisaati wuxuu yidhi ninkan shaacirka ah wa culuumu sharci illaahi sharciga ilaahay culuumtiisii naadad way dhawaaqday culumtu jahratan jaahiratan xaalay tahay iyadoo qayliyeysa culumtii iyadoo qayliyeysa ayay dhawaaqday oo maxay tidhi haadaa kani awaanun waa wakhtigaasoo fiihi wakhtiga dhexdiisa dayu bisaadi gogashayda
duubisteedii uu ku sugan yahay wakhtigan cilmigii ilaahay waa hadlayo wuxuu yidhi waa xilligii derintayda la laabi lahaa oo gogasheeda la laabi lahaa ayaa la joogaa huu yidhi maxaa yeele wax alla dartiis ii baranaya ayaan la haynin maadaama aan lay baranaynna ilaahay adduunyada waa iga qaadaa saasuu cilmigii u calacalay ayuu yidhi ninkan shaacirka ah wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa abaa darrin war yaa abiidarow la an taqduwa inaad kallahdo oo fatacallama aayatan aayad aad soo barato aayaddaasoo min kitaabillaahi kitaabka ilaahay ka mid ah ayaa khayrun laka adiga kuu khayr badan min an tusalliya inaad tukato kaaga khayr badan mi'ata ragca 100 ragco bal u fiirso waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam abidar uu ku yidhi abidarow hal aayad oo kitaabka ilaahay ka mid ah in aad soo barato ayaa waxay kaaga fiican tahay 100 ragco oo sunna ah inaad tukato faa'iidooyinka cilmiga isagoo tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wala an taqduwa inaad kallahdo oo fatucallima baab aad dadka barto baabkaasoo min alcilmi cilmiga ka mid ah cumila bihi baabkaas ha lagu camal falo ow lam yucmal bihi ama baabkaas yaan lagu camal faline ayaa khayrun min an tusalliya 1000 ragca 1000 ragco inaad tukato ka khayr badan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam abidarow inaad kallahdo oo hal baab oo cilmiga ka mida aad dadka barto baabkaas ama ha lagu camal falo ama yaan lagu camal faline ayaa kaaga khayr badan 1000 ragcood inaad tukatid oo sunno ah bal u fiirso waa hal baab oo cilmiga ka mid ah haddaad gurigaaga ka kallahdo oo qof aad soo barto baabkaas cilmiga ka mid ah yaa ama markaas ha lagu dhaqmo baabkaas aad qofka soo bartay ama yaan lagu dhaqmine waxay ka khayr badan tahay taasi buu yidhi 1000 ragco oo tukatid isagoo nabigeenu tilmaamayo sala allahu calayhi wasalam faa'iidooyinka laga helayo barashada cilmiga rawaahu waxaa wariyey xadiiskaas ibnu maajah wa qaala alxaafidu almundiriy xaafid almundirina wuxuu yidhi fi targhiib kitaabkiisa targhiib la yidhaha wuxuu ku yidhi isnaaduhu xadiiskan isnaadkiisu xasanun wuu wanaagsan yahay buu yidhi oo xadiiskan sidan macnahan aanu soo sheegnay tilmaamahaya sanadkiisu wuu wanaagsan yahay ayuu yidhi xaafid almundiri ثالثا arrinka saddexaad oon jecel nahay inaan isku baraarujinno waxaa weeye taxriimu tatabuci rukhasi الculamaa wa iftaa'i الnaasi biاlأshali الأhwan taxriimu tatabuci rukhasi الculamaa culimmada ruksooyinkaa raaciddooda in la xarrimay iyo wa iftaa'i الnaasi dadka in loo jawaabo in la xarrimay bilashali midka sahlanaashada badan alahwani ee fudaydka badan waxaa halkan aanu isugu baraarujinaynaa diintu inaysan oggolayn ruksooyinka faraha badan ee culimmadu ama madaahibtu ay bixiyeen in la raacraaco marba midka jilacsan aad ka soo qaadato inay xaaraan tahay waxaa kaloo xaaraama dadka inaad u jawaabto mar walbaba madhabkii kula fududaada adoon hal madhab markaas aan qayd aadan ku lahayn oo hal madhab aadan ku xirrayn inaad mar walbaba fiirsato tiraa war maanta ma waxaa jilacsan masaladan madhabka shaafici miyaa ugu jilacsan mise madhabka abi xaniifa mise madhabu xanaabila mise madhabulmaalikiya mise afartaba inta ka baxdo hal nin noo raadiya abu thawr oo kale noo raadiya ama xaafid almundiri wax jilacsan bal noo raadiya oo masaladan jilacsan aan qaadanne taasoo kale xaaraan wo waclam ogaaw yarxamuka allaahu allaha kuu naxariisto tacaalaa ku rahaaye annahu sha'niya yaxrumu cala alinsaani insaanka waxaa xaaraam ka ah insaankaasoo almuslim ee muslimka ah an yulafiqa inuu gurbiyo bayna alaqwaali hadallada dhexdooda inuu gurbiyo oo wayatatabica uu raaco wayatatabbaca uu raacraaco rukhasa alculamaa culimmada ruksooyinkooda uu raacraaco
waxa qofka muslimka xaaraanka ah hadallada intuu isku gurbiyo madaahibta maalin walba madhab gooniya uu saarsanayo shalay madhabkuu saarsanay waa ka wareegsaday haddana maanta maxaa yeelay wuxuu isleeyahay kii shalay kanaa kaaga jilacsan haddana qowlkii shalay aad raacday kanaa kaaga jilacsan mar walbaba waqiiladaas daciifba ha noqdee meesha jilacsan uu ninkaasi raaci waa xaaraantaas oo wayabxatha uu baarbaaro can ilasali midka sahlanaashada badan iyo walahwani kan fudaydka badan alladii midkaasoo yulabbii lahu asaga ugu yeedha shahawaatihi shahawooyinkeeda ugu yeedha wa aqraadahu muraadyaalkiisana u yeedhaya waxyaale shahawaadkiisa iyo muraadkiisa maaragtaahay uu ku ansaxsanaayo inuu uun raacraac uu ku sameeyo xaaraan wey xaydu meel uu raacraaco yakhtaaru linafsihi naftiisa uu dooranaayo alasala kan sahlanaashada badan iyo walahwana midka fudaydka badan naftiisu wuxuu u dooranaa kan fudaydka badan min hayri daliilin deliil la'aan ayuu midka fudaydka badan dooranaa deliilkaasoo muctabarin la fiirinaayo sharcan min sharcin xagga sharciga lagu fiirinayo wax deliil ah oo sharci ah oo u haysto haba yaraatee ma jiraan markaasuu wuxuu leeyahay waqiilada fudadaan iska raaci yurajixu wuu rajaxaa aw yusaxixu ama waa saxiix garaynaa tilka taasoo almasalata masaladaasuu rajaxaa sharcigaasoo waxaan ka sifaynaynaa jumlada yurajixu sharcanta oo jumladaas waxay noqon markaa fii maxalli nasb inay noqon maadaama laga sifaynaayo erey mansuub ah oo kor dhigan marka sharcigaan ka sifaynaynaa faacilkana waxaan u celinaynaa isla sharciga naftiisa ayaan faacilka u celinaynaa ow yusaxixu nafteedana waxaannu ku cadfaynaa yurajixudaan ku cadfaynaa tilkana waxaannu ka dhignay mafcuulkii yaannu ka dhignay laakiin yaannu mafcuul uga dhignay waa min baabi alishtiqaal meeshay naxwoleydu yidhaahaan min baabi tanaasuc weeye waxaa ku doodaya ficilka yurajix iyo ficilka yusaxix mid walba wuxuu dooni inuu mafcuul bihi u qaato ayuu ku doodi sida ibnu maalik alfiyadiisa uu ku yidhi in caamilan iqtadayaa fi ismin camal qablu falilwaaxidi minhum alcamal waathaani awlaa cinda ahli اlbasra waاkhtaara cagsan gayruhum daa usra waacmil ilmuhmala fii damiiri ma tanaazacaahu waltazim maltuzima kayuxsinaana wayusii'u ibnaaka waqad baqaa waاctadayaa cabdaaka walaa taji macawalin qad uhmila bimudmarin ligayri rafcin uuhila bal xadfahu lzam in yakun hayra khabar waakhiranhu in yakun huwa alkhabar waadhir in yakunu damiirun khabara ligayri ma yudaabiqu almufasira naxwu adunnu wayadunnaani akhaa zaydan wacamran akhawayni fi rakhaa meesha ibnu maalig uu yidhi isagoo ka hadlahayo tanaasuca marka meeshan tanaasucii ayaa ku jira sharcigaasoo yurajixu rajaxa tilka almas'ala ow yusaxixu ama saxiix gareeya tilka taasoo almasalata masalada macnaha wax sharci ah oo masaladaas saxiix garaynayana ma haysto wuxuu ku raaci bimujaradi hawaah wa inamaa in kale maahane huwa itibaacu raaciddu hawa nafsi waa nafta hawadeeda un hawahaasoo almujaradu ee la dhartiray alladii hawahaasoo yuqadiihi uu daboolaayo oo wayasturuhu uu ku asturaayo bixujati anna fi lmas'alati qowlayni mas'alada laba qowl inay ku sugan yihiin xujadeeda uu hawadaas ku asturaa waاkhtalafuu fiiha masalada way isku khilaafeen xujadaasuu ku asturaa macnaha waxaa weeye ninkan markuu qowlka daciifka ah oo ruksada ah uu raadsanaayo oo uu isleeyahay madaahibta inta gurubsato midka ugu fudud raadi uu isleeyahay ulajeeddadiisa dhan waa hawa raac laakiin markii la su'aalo la yidhaah war waxan maxaad u samaysay oo meelaha uun jiljilacsan aad diinta uga ogaalataa iyo madaahibta iyo aqwaasha wuxuu xujo ka dhigtaa masalada walba waa la isku khilaafsanaa marka khilaafkii dhinacun baan ka qaatay ama wuxuu leeyahay masalada laba qowlaa ku sugan meeshan hadda anna fi lmas'alati qowlaani ayuu dhigi kitaabka aan gacanta ku hayo laakiin waxaa lagu saxaa meeshaas anna fi lmas'alati qowlayni meesha qowlaani uu leeyahay qowlayni aliftaas waa laga tiri iyo a loo bedeli maxaa yeele waa muhanna jooga xaalatu nasba waxaana kor dhigahaya annadaas hore fi lmas'alatina waxaanu ka dhigaynaa khabar muqadam oo ay iska leeyahay xarafkan anna walinsaanu ruuxa bini aadamka ah alladii insaankaasoo yatadaaharu isku muujinaya
biitibaaci aqwaali alculamaa culimmada hadalladooda hadalladaas raaciddooda ninka isku muujinaya oo fa yantaqilu ka guuraaya min madhabin ilaa madhabin madhab kale haddana u guuraaya wa yaqfisu min qowlin qowl ka boodaaya ilaa qowlin qowl kale haddana u boodaaya litalbiyati shahawaati nafsih liajli talbiyati shahawaati nafsih naftiisa shahawaadkeeda shahawaadka ajiibiddooda darteedna u boodboodaya wa in taqaddaa haba isqariyo wa tasatara amaama annaasi dadka hortooda haba isku asturo bishariicati shareecada raaciddeeda iyo waliqtidaa'i ku dayasho bilculamaa culimmada uu ku dayanayo haba isku asturee fa innahu shakhsigaasi filxaqiiqati xaqiiqada dhexdeeda xaal uu ahaaday cindallaahi ilaahay agtiisa tacaalaa ku rahaye muttabicun wuxuu raacay lihawaahu hawadiisuu raacay yarkudu wuxuu gulfinaa waraa'a shahawaati nafsihi naftiisa shahawaadkeeda shahawaadkaas gadaashooduu gulfinaa xaqiiqa ahaan qofka mar walbaba dhahaya aqwaasha culimmada iyo madaahibta waxaan ka dooranaa ama aan maaragtaa kala dhex bixi marba meesha jilacsan ayaan ka dooranaa ninka dhahaya xaqiiqatan ninkaasi wuxuu raacay hawadiisa iyo shayddaankiisa wuxuuna guluf ugu jiraa sida shahwada uu u raaci lahaa iyo waxa naftiisu ay jeclaysatay sida u raaci lahaa ayuu ninkaasi guluf ugu jiraa hawada in la raacana ilaahay wuu ka digay subxaanah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah afa anta takuunu calayhi wakiila afara'ayta bal ka warran man qofkaasoo ittakhada ilaahahu ilaahiisii ka samaystay hawaahu hawadiisa meeshii ilaahay uu ka amar qaadan lahaa naftiisuu ka amar qaataa iyo waxa uu jeclaystay isagu siduu jeclaysto ayuu iska sameeyaa afa anta adiga miyaa takuunu ahaanaya wakiilan calayhi shakhsigaas aakhiro adiga miyaa wakiil ka noqonaya ninka sidaas u dhaqmay am taxsibu mase waxaad u malayn anna agharahum dadka intooda badan yasmacuuna inay xaqa maqlaan ow yacqiluuna ama ay xaqa gartaan in hum ahum ma aha gaalada intooda badani ilaa kal ancaami xoolo oo kale mahani bal hum iyaga adallu ka lumid badan sabiilan min sabiilin xagga jidka bal xoolo inay ahaadaan iska dhaafee xoolaha iyagaaba ka daranba oo ka lumid badan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afa kullamaa mar kasta oo jaa'akum rasuulun rasuul uu idin yimaado bimaa shay uu idinla yimaado shaygaas oo laa tahwa anfusukum nafafyaalkiinnu aysan jeclaysanayn istakbartum ma isweynaysiinaysin mar walba wax naftaadu aysan jeclayn laguu sheego ma isbuufine oo ma iskibrin oo aayaddaasina waxaannu ka ogaannay xaqa oo laga santaago oo laga kibro dhibaatada ay leedahay iyo shuqulka lagu yaqaanno gaalada inay taasi tahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kullamaa mar kastoo jaa'ahum rasuulun rasuul uu yimaado bimaa shay uula yimaado shaygaasoo laa tahwa anfusuhum nafafyaalkooda aysan jeclaysanayn fariiqan fariiq oo rususha ka mid a kadabuu way beeniyeen wa fariiqan fariiq kalena yaqtuluuna way dilaayaan oo way laynayaan mar walba oo waxyaalo naftooda aysan jeclaysanayn rasuulku uula yimaado waxay sameeyaan rusushii labay u qaybiyeen qolana waa dileen maadaama ay ula yimaadeen wax naftoodu aysan jeclayn qolana waa beeniyeenoo socay dheheen waxaad tihiin ma lahan ayay ku yidhaaheen wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa tattabicu alhawaa warroy hawada ha raacraacinnina oo raacraaca hawada joojiya wa in talwuu haddaad madaxa laabtaan markii xaqa laydiin sheego ow tucriduu ama aad xaqa ka sii jeesataan fa inna allaaha ilaahay kaana wuxuu aaday khabiiran alle xog ogaal u ah bimaa shaygaasoo tacmaluuna aad camal falaysaan ilaahay wuxuu xogtiisa og yahay waxa aad haysaan iyo shaqada iyo acmaasha aad ku jirtaan xogtooda ilaahay ayaa ka warqaba subxaanah wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tattabici alhawaa hawada ha raacin qof walbow oo fa yudillaka uu ku lumiyo hawadaas can sabiilillahi jidka ilaahay uu kaa lumiyo waxaad naftaadu ay iska jeclaysatay haddaad iska raacraacdo
إلهي وحكوليه وحاد كلمي يا جدك إلهي أيات كلمي وذم الله رجلا نن أيا إلهي عمباري في كتابه كتاب كيس وكله عمباري كتاب كاسو العزيزي شرف كلها نن كاسو كان عالما عالم أهاجري في قومه قوم كيس دحدو ذنا عالم كأهاجري من آدو علم بدنا أيا إلهي وعنباري سبحانه وتعالى وعلم كيسي وحبأوسا كترين وإلهي وحيري أخلد إلى الأرض dhulkii ayuu ku dhambacaadsaday oo hoos uu isku dhigay macnaha meeshii la rabay meel kore inuu gaaro maadaama nin caalima uu yahay dhulkii uu ku dhambacaadsadayoo waa isliiday watabaca hawaah hawadiisina waa raacay waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tudic man ruuxa adeecin ruuxaasoo aqfalnaa aan halmaansiinay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa xasuusteenna iyo dikrigeenna aan qalbigiisa halmaansiinay ruuxaas ha raacin hana adeecin oo watabaca hawaahu hawadiisii iska raacay waxa naftiisu ay jeclaysatay iska raacay oo wa kaana amruhu arrinkiisuna uu ahaaday furutaa xadgudub oo arrinkiisu noqday ruuxaasa ku dayanin aayaddanna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga digay dadka hawadooda raaca in aadan ku dayan ee aad ku dayato dadka raaca macnaha diinta islaamka iyo meesha ugu xooga badan mas'alada وقال تعالى إلهي وحو يري فاعلم ogow أنما إن kale mahana yatabicuuna ahwaa'ahum dadka hawayaalkooda ayay uun raacayaane taa un ogow waman adallu miman duul yaa ka lumid badan duulkaasoo itabaca hawaahu hawadiisa raacay nin hawadiisa iska raacraacaya yaa ka lumid badan وقال تعالى إلهي وحو يري ثم جعلناك وانكو يالني على شريعة وضو كركيد أيانكو يالني وضداسو من الأمر أرنك كمدا فاتبعها وضداس راع ولا تتبع راع أهواء الذين كوي هويالكو كوي وحيالها يجعلستان راع لا يعلمون وحباء كالوغين وقال تعالى إلهي وحو يري ولا تتبعوا هالراعننا أهواء قوم هويالكو ذا هالراعننا قوم كاسو قد ضلوا اللمي من قبل هري اللمي وأضلوا كثيرا إن بدن اللميي وضلوا أيقنا كاللمي عن سواء السبيل جدك توسن برتمهيسة كاللمي إلهي سبحانه وتعالى أيضا